aad iyo aad ugu faraxsanahay ilaahayna uga xamdiyeynaa inay maantay guddiga madaxa bannaan muxuu ahaa dib u eegidda dastuurka uu maanta inuu guddiga la socodka dib u eegidda dastuurka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya inuu ku soo wareejiyey shantii cutub ee ugu dambeysay 15 cutub shantii ugu dambeysay ee lagu sameynayay dib u eegidda dastuurka ku meel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa weeye waa taariikh cusub weeye waa taariikh maanta ilaahayna joojiyey in maanta boqolkiiba boqol dib u eegiddii dastuurka oo ka koobnaa 15 cutub ee ku meel gaarka inay maanta ka soo dhamaatay guddigii madaxa bannaanaa kuna soo wareegtay guddiga la socodka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan marka munaasabadan runtii waa munaasabad qaali ah Soomaaliya qaali ku ah dadka hay-adaha muxuu ahaa ka shaqaynayana qaali ku ah inay waajibkoodii soo qabsadeen waxaa dhiman la oran karayaa oo keliya la tashigii dadweynaha waxa weeye weli wuu dhiman yahay marka laga reebo in kooban iyo dowlad goboleedyada iyo baarlamaanadoodaba ayaa weli dhiman oo ah la tashigaas taladoodii in loo geeyo waxaa kaloo dhiman arrimaha ku saabsan arrimo siyaasadeed qodobo u baahan muxuu ahaa wadaxaajood siyaasadeed in laga galana weli way dhiman yihiin marka guddiyadii hawshan loo xil saaray waajibkoodii koobaad way guteen waajibka labaadna waa midka la doonayo in dadka Soomaaliyeed la tashigooda iyo aragtidooda inay ku darsadaan si markaa kadibna baarlamaanka federaalka Soomaaliya loogu gudbiyo oo ay u siiyaan u meel mariyaan si dastuurkaasi u noqdo dhaqangal insha Allah taala inta laga gaarayo muxuu ahaa aftiq qaran inta laga gaarayo marka aad iyo aad baan waxaan ugu hambaliyeynayaa uga mahad celinayaa guddiga madaxa bannaan oo hadda ay maadaama guddoomiyihii maqan yahay ay guddoonkii joogto muumino sheekh ay joogto aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa muddadii aan hadda labada sano ahayd oo aan hawshaan wadnay sida dadaalka badan sida matidnimada ah sida matadawacnimada ah sida duruufo kasta oo jiray inay ka soo dhalaaleen sidoo kalena waxaan uga mahad celinayaa sidaas la mid guddiga la socodka oo iyaguna aan habeen iyo maalmidna ka seexan si ay u gaarsiin lahaayeen hay-adaha ku shaqada leh arrimahan dib u eegidda hadday tahay mid farsamo ama ay tahay mid siyaasadeed muxuu ahaa wadaxaajood siyaasadeed u baahan runtii maanta waa taariikh waxaan shacbiga Soomaalida ugu bishaaraynaynaa haddii la oran jiray dastuurkii weli waa lagu dhegan yahay weli waa la maqan yahay dastuurkii inta dhimani waxay ku dhiman tahay waa hawl la tashiga oo annaga awoodayada ilaa heer aanan meelaha qaarkood awoodin oo loo baahan yahay inay ka qayb qaataan dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya inay doorkoodii ka ciyaaraan sidii loo eebyi lahaa oo ah gaarsiinta bulshada Soomaaliyeed aan ku gaarsiin lahayn iyo soo dhamaystiridda
qodobada u baahan wada xaajoodka marka shacbiga Soomaaliyeed waxa uu bishaaraynaynaa dastuurkii waa boqolkiiba boqol dib u eegidiisa waa soo dhamaatay guddiga madaxa bannaan farxad weyn ay u tahay runtii 15 cutub marna hore ay u soo gudbiso 10 cutub guddiga la socodka ee baarlamaanka haddana ay u soo gudbisay 5 cutub oo ugu dambeysay 10 ilaa 15 oo ahaa ay ka mid tahay 5 cutub oo ugu dambeysay aan soo wareejinay maanta waxay taagan tahay 15 cutubba in gacanta uu ugu jiro guddiga la socodka ee guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka in gacantooda ay ku hayaan 15 cutub aan ku soo wareejinay oo gacantooda uu ku jiro waxaan rabaa codsi aan u jeedinayaa ee haddana ay nooga dhimantaa intaan codsiga gelin waxaa u dhiman 15kaas cutub muxuu ahaayo la tashi dadweyne iyo in la geeyo maamul goboleedyada iyo baarlamaanada maamul goboleedyada ayagana waxay ka dhigi lahaayeen ay talo ku darsan lahaayeen waxaan dhihi lahaa aan ka codsanayaa maamul goboleedyada maadaama uu soo dhamaaday 15 cutub dib u eegistiisii ay soo dhamaatay ee harsan tahay kaliya in lagu sameeyo muxuu ahaa dib u eegis lagu sameeyo waxaan ka codsanaynaa inaysan u xayirin isqa qabsi hadduu jiro iyo haddii kaleba oosan loo xayirin dastuurkan oo yahay dastuur ummadda Soomaaliyeed ka dhaxeeya masiirka ummadda Soomaaliyeed oo yahay kii ummadda Soomaaliyeed lagu hagaayo inuu yahay wixii jiraba in gooni la saga xisaabtamo laakiin dastuurkan inuusan noqonin inaan mid la sababeeyo ama la siyaasadeeyo waxyaabo aan loo geysanin oo noqdo mid ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka wada dhaxeeya haddaysan ayaga ahayn annaga heerkan ma soo gaarsiiyeen runta xaqiiqda markay jirto maxaa yeelay caqabado badan aan haystay caqabado badan aan la kulanay xataa ma aanan haysan hooy aan ku shaqeyno waxa garabna siiyay ayaga ayay ahaayeen xataa hooyna siiyay oo aan ku shaqeyno xataa inkastoo hadda bilahan ugu dambeeyo January ilaa iyo hadda aan helnay hooy aan ku shaqeyno laakiinse waxaan uga mahadcelinaynaa guddiga la socodka baarlamaanka iyo gudoomiyaha aqalka sare aadaan uga mahadcelinaynaa dadaalkaas ay runtii ay sameeyeen haddaysan sameey lahayn aysan soo aruursan lahayn waxa uma qabateema runtii xaqiiqatan markii laga hadlo marka waxaan leeyahay dhamaantiin waad mahadsantihiin waan uga mahadcelinaa waxaan si fiican ugu sii mahadcelinayaa gudoomiyaha aqalka sare aadaan asagana uga mahadcelinaynaa mar kalena waa ku soo celinaa mar labaadna waa ku soo celinayaa waxaan leenahay dastuurkan waa dastuur ummadda Soomaaliyeed ka dhaxeeya waa masiirka ummadda Soomaaliyeed waa wixii la isku maamuli lahaa wixii la isku hagi lahaa walaalaheen maamul goboleedyada waxaan dhihi lahaa arintan inaan la siyaasadeynin annaga hadda 10kan dambe la galaa wixii ka dambeeyay wixii ka dambeeyay waxaan jecelnahay inaan aadno maamul goboleedka ayagana inay noo fududeeyaan